maxaa isku xiraya weerarada la sheegay in lagu beegsaday maraakiibta xiriirka la leh Iiraan dagaalka Ukraine iyo xiisadda bariga dhexe? Jawaabtu waa in Caspian ay tahay halbowlaha saadka tamarta iyo isku xirka istiraatiijiga ah. Marka cadaadis lagu saaro Ruushka dhanka Yurub wuxuu u jeesadaa koonfurta iyo bari ee Caspian kaga beegan tahay. Marka Iiraan ay la kulanto cunaqabatayn ama go'doomin waxay xoojisaa marinada Caspian. Marka Yurub ay raadiso tamar cusub indhaheedu waxay ku jeestaan Azerbaijan iyo gobolka Caspian. Marka Hindiya ay rabto waddo gaaban oo ay ku gaarto Ruushku waxa ay egtaa isla badda Caspian waxa ay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah marino cusub oo ganacsi gaadiid isahay oo isku xira Ruushka Iiraan iyo bartamaha Aasiya xilli marino kale ay la kulmayaan cunaqabatayn iyo khataro dagaal. Sidaas darteed wax markii hore u ekaa biyo go'doonsan ayaa noqday halbowlaha dhaqdhaqaaqyo istiraatiiji ah oo saameyn ku leh dagaalka Ukraine, ganacsiga Euro-Aasiya iyo loolanka quwadaha waaweyn. Laakiin su'aasha taagan ayaa ah sidee ay baddan xiran ugu noqotay halbowlaha dhaqaalaha Ruushka iyo Iiraan? Sideese marinada ganacsi ee ka gudba Caspian u beddelayaan isu dheelitirka awoodda dunida? Si aan jawaab uga helno su'aalahaas waa inaan qarni iyo dheeraad dib ugu laabanaa inagoo ka soo bilaabayna sanadkii 1921. Xilligaas dunidu waxay ku jirtay marxalad isbeddel weyn. Boqortooyadii Ruushka way burburtay, midowgii Sofiyeetina wuxuu bilaabay inuu dhismo. Dhinaca koonfureedna Bershiya oo markii dambe noqotay Iiraanta casriga ah waxay isku dayeysay inay dib u dhisto dowladdeeda. Labada dhinac waxay si wanaagsan u garanayeen hal xaqiiqo oo ah qofka gacanta ku haya Caspian ma xakamaynayo oo kaliya biyo, wuxuu xakamaynayaa albaabka u dhaxeeya Yurub iyo bartamaha Aasiya. Sanadkaas waxaa la saxeexay heshiiskii ugu horeeyay ee muhiimka ahaa ee u dhaxeeya Moscow iyo Tehran. Heshiiskaas wuxuu qeexayay in labada dal ay si wadajir ah uga faa'iideysan karaan badda Caspian, gaar ahaan dhinacyada maraakiibta iyo kalluumaysiga. Waqtigaasi cid si dhab ah u hadalaysay ma jirin shidaalka iyo gaaska ku jira gunta hoose ee baddan, sababtoo ah tiknoolajiyadii lagu soo saari lahaa weli ma aysan horumarin. 19 sano kadib sanadkii 1940 waxaa la saxeexay heshiis kale oo sii adkeeyay xiriirka labada dal ee ku aadan Caspian. Muddo ku dhow 50 sano xaaladdu waxay ahayd mid degan, sababtuna ma ahayn in uusan muran jirin, balse waxay ahayd in xeebaha intooda badan ay gacanta ugu jireen hal quwad oo kaliya oo ahayd quwaddii midowgii Sofiyeeti. Marka khariirada la eego xilligaas, Caspian waxa ay lahayd 2 milkiilo oo waaweyn. Dhinaca waqooyi iyo bari waxaa joogay midowgii Sofiyeeti, dhinaca koonfureedna waxaa joogay Iiraan. Taasi waxa ay ka dhignayd maamulka badda mid fudud marka loo eego maanta. Laakiin dabayaaqadii qarnigii 20aad wax walba way isbedeleen. Sanadkii 1991 midowgii Sofiyeeti ayaa burburay. Dhacdadaasi waxay ahayd mid ka mid ah isbedelada ugu waaweyn ee juqraafi ahaan dunida soo mara tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Hal dawlad ayaa isu beddeshay 15 dawladood oo kala madax bannaan. Caspian hal habeen gudaheed laba dal kama sii dhaxayn. Waxay noqotay badda ay wadaagaan 5 dawladood oo kala ahaa Ruushka, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan iyo Iiraan. Su'aashii ugu horeysay ee dhalatay waxay ahayd mid aad u adag oo ahayd yaa leh baddan. Haddii Caspian loo aqoonsado bad waxaa shaqaynaya xeerarka caalamiga ee badaha, kuwaasi oo u ogolaanaya in biyaha iyo kheyraadka lagu qaybiyo hab gaar ah. Haddii loo aqoonsado haro, waxaa loo baahan yahay heshiis cusub oo ay wada gaaraan dhammaan dalalka xeebaha leh. Muran sharci ah oo muuqda oo kaliya ayaa isu beddelay muran siyaasadeed. Ruushku wuxuu doonayay xal ilaalinaya saameyntiisa, Iiraanna waxay ku doodaysay in dhammaan dalalka loo simo qaybta badda. Azerbaijan, Kazakhstan iyo Turkmenistan waxay doonayeen in qaybinta lagu saleeyo dhererka xeebaha ay leeyihiin, sababtoo ah taasi waxa ay siinaysaa dhul badeed aad uga ballaaran. Markii qobarada juqraafi iyo qareennada caalamiga ah ay xisaabiyeen dhererka xeebaha, waxaa caddaatay in Iiraan ay noqon doonto dalka ugu khasaaraha badan haddii habkaasi loo qaato. Iiraan waxay leedahay qiyaastii 13% xeebaha Caspian. Kazakhstan ayaa leh xeebta ugu dheer. Ruushka iyo Azerbaijanna waxay leeyihiin xeebo muhiim ah. Taasi waxa ay sharxaysaa sababta Tehran muddo dheer ay uga hortimid qaabka qaybinta ee ay taageerayeen dalalka kale. Laakiin muranku ma aha sharci oo kaliya, waxaa jiray lacago aad u badan oo dhulka hoostiisa ku jiray. Dabayaaqadii 90aadkii shirkado waaweyn oo caalami ah ayaa bilaabay sahano cusub. Markii qodista la bilaabay waxaa la xaqiijiyay in gunta hoose ee Caspian ay qarinayso kayd shidaal iyo gaas oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn dunida. Qaar ka mid ah goobaha shidaalka ayaa laga helay meel u dhow xeebaha Azerbaijan, qaar kalena waxay ku jireen dhulalka Kazakhstan iyo Turkmenistan. qaar kalena waxa ay ku jireen dhulka Kazakhstan
Turkmenistanna waxay lahayd gaas dabiici ah oo aad u badan. Maalmo gudaheed Caspian waxa ay ka gudubtay inay noqoto muran sharci ah, waxay noqotay tartanka tamarta. Dowladaha reer galbeedku waxay si gaar ah isha ugu hayeen Azerbaijan sababtoo ah waxay ahayd mid cad. Yurub waxay doonaysay shidaal iyo gaas aan Ruushka ka iman. Haddii tamarta Caspian loo gudbin karo Yurub iyada oo aan la marin dhulka Ruushku, waxa ay bedeli lahayd isu dheelitirka awoodda tamarta. Ruushku si fiican ayuu taa u fahmay, Iiraanna sidoo kale way fahantay. Sidaas ayuu ku bilowday dagaal aan rasaas badan lagu ridin, balse lagu dagaalamay dhuumaha shidaalka. Su'aashu waxa ay noqotay, xaggee ayay maraan dhuumuhu? Haddii dhuumaha la mariyo Ruushka, Moscow ayaa sii ahaanaysa albaabada tamarta. Haddii lagu xiro Iiraan, Tehran waxa ay noqonaysaa marin muhiim ah. Laakiin haddii la helo waddo saddexaad oo sii marta Azerbaijan, Georgia iyo Turkiga, markaas Yurub waxay heli kartaa tamar ka madax bannaan Ruushka iyo Iiraan. Fikraddaasi waxay dhalisay mashruucii ugu caansanaa ee gobolka oo loo yaqaanay Baku iyo Tablis. Markii dhuunta shidaalka la furay, waxa ay noqotay mid ka mid ah guulihii istiraatiijiyadeed ee ugu waaweyn qarnigii 20aad dabayaaqadiisii. Shidaalka Caspian wuxuu gaaray badda Mediterranean-ka isaga oo aan marin Ruushka. Taasi waxa ay beddeshay xisaabtii siyaasadeed ee gobolka. Moscow waxay aragtay in saameynteedii dhaqaalaha la wiiqayo. Iiraanna waxay aragtay inay lumisay fursad ay ku noqon lahayd marinka ugu muhiimsan ee tamarta gobolka. Waxaa intaasi dheer in shirkado waaweyn oo reer galbeed ah ay balaayiin dollar ku maalgeliyeen goobaha shidaalka ee Azerbaijan iyo Kazakhstan. Lacagtaasi waxay kor u qaaday dhaqaalaha dalalkaas. Waxay dhiseen magaalooyin casri ah, waxay casriyeeyeen tegadaha, waxay ballaariyeen ciidamada badda, waxayna bilaabeen in Caspian ay u arkaan il dhaqaale oo ka muhiimsan sidii hore. Laakiin kobacaasi wuxuu keenay walaac cusub. Maadaama shidaalka iyo gaasku kordheen, waxaa sidoo kale kordhay muhiimadda ciidamada badda. Dal kasta wuxuu bilaabay inuu dhiso maraakiib cusub. Inkasta oo Caspian aysan lahayn marin toos ah oo badaha adduunka ah, haddana waxay isu beddeshay goob ay ku tartamaan maraakiibta dagaal, nidaamyada difaaca iyo saldhigyada militari. Ruushku wuxuu sii xoojiyey ciidamada Caspian. Iiraanna waxay kordhisay joogitaankeeda koonfurta badda. Azerbaijan, Kazakhstan iyo Turkmenistan iyaguna waxay bilaabeen inay casriyeeyaan awooddooda badeed. Waxay ahayd bilow cusub. Caspian hadda ma aha oo keliya goob shidaal. Waxay noqotay goob ay quwadaha gobolku ku cabbiraan awooddooda. Laakiin dhacdo kale ayaa sii kordhisay muhiimadda baddan. Sanadkii 2014 markii Ruushku la wareegay Crimea, xiriirka Moscow iyo reer galbeedku wuxuu galay marxalad cusub. Kadib sanadkii 2022 markii dagaalka Ukraine uu bilowday, qiimaha Caspian wuxuu gaaray heer aan hore loo arag. Sababtu jawaabta waxaa lagu fahmi karaa hal eray oo qura: saadka. Badda Caspian waxa ay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah marino cusub oo ganacsi, gaadiid iyo sahay isku xira Ruushka, Iiraan iyo bartamaha Aasiya. Xilli marino kale ay la kulmayeen cunaqabatayno iyo khataro dagaal. Wax markii hore u ekaa biyo go'doonsan ayaa noqday halbowlaha dhaqdhaqaaqyo istiraatiiji ah oo saameyn ku leh dagaalka Ukraine, ganacsiga Euro-Aasiya iyo loolanka quwadaha waaweyn. Isku dayga Ukraine ku doonaysay inay goob dagaal kaga dhigto baddan waa mid keeni kara inay isku xirmaan dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyo dagaalada Bariga Dhexe. Laakiin weli waxaa harsan su'aasha ugu muhiimsan oo ah, sidee ay baddan xiran u noqotay halbowlaha dhaqaalaha Ruushka iyo Iiraan? Sideese marinada ganacsi ee ka gudba Caspian u beddelayaan isu dheelitirka awoodda dunida?